kulanti wanaagsan daawadaha qiimiga badan oo ku soo dhawaada xikmada xula. Adduunkan ma jiraan waxaan macquul ahayn, maxaa yeelay isla ereyga impossible oo ah macquul maahan ayaa waxa uu ku leeyahay I am possible. Dadka guuleystay waxay ku dhiiradaan inay sameeyaan isbedel, halka dadka guuldaraysay ay ka baqaan isbedelka. Waqtigaagu waa uu kooban yahay ee haddaba ha ku lumin dadka kale noloshooda. Labada cisho ee noloshaada ugu muhiimsan waa maalinta aad adduunka timi iyo maalinta aad garatid waxaad u timi. Qiimahaagu yaanu kaaga qasaarin hal eray oo aad tidhi simbiri xayarna ha ku wayn ixtiraamkaaga oo dhan. Hamigaaga adduunyana ha ka yeelin inay dadku ku jeclaadaan, sababtoo ah qalbiyada dadku waa ay isbedbedelaan. Maanta way ku jeclaanayaan, berrina way ku nacayaan. Qof kasta oo aamusan macnaheedu maahan inaanu jawaabi karin. Waxaa jira qof u aamusan inuusan dadka kale dhaawicin. Sidoo kale waxaa jira qof u aamusan oo isagu laftiisu xanuunsanayo, markaa diidaya inuu hadalkiisa xanuun kale ugu sii siyaadiyo. Sidoo kale waxaa jira qof og inuusan hadalku wax faa'iido lahayn xitaa haddii uu hadlo. Sidoo kale waxaa jira qof aamusan xilliga uu xanaaqsan yahay si uunan dad kale u khasaarin ama dad kale dhaawac u yeelin. Haddaba ogow, af daboolan waa dahab. Diiradda saar markaste waxaad doonayso. Biyuhu waxay kala jeexaan dhagaxaanta. Ma sheegayso in biyuhu ka xoog badan yihiin, laakiin sirtu waa ku celcelinta. Da'da 20 jirku waa da'da isbedelka, isxoojinta, laakiin maaha da'da muranka iyo tala siinta. Noloshaada waxa ugu muhiimsan ee aad u qaban kartaa, kuna horumarin kartaa, kuna maalgashan kartaa waa inaad wax barto. Haddaba gabagabada barnaamijkeennan in badan oo bulshada ka midii way ku bahalagelin doonaan wadadaada. Haddaba ha fiirin gadaashaada ee mar waliba u soco hortaada. Hana ka quusan gaadhista guushaada. Mar waliba oo ku dadaasho guushaada, una kacdo horumarkaaga, xidhxidhatana alaabtaada, una safarta caalamka riyadaada. Waa inuu bataa dulqaadkaaga, kuna labisataa sabirkaaga. Markaad gaadho guushaada oo aad taagato calankaaga, dadkuna soo eegaan dhankaaga, waxay dareemi doonaan hankaaga inuu ahaa mid sare ama jiray meel kore qoraysnaana mar hore. Waa anigoo Salmaan Axmed Jaamac ah oo idin leh fi amaan illah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.